وبركاته. وأنا واحد مع الفؤاد معلك علم البلشدة. waxaan halkan maanta kasoo jeedinayaa fasalka saddexaad casharkiisa maadaduna waxa weeyaan waa cilmi bulsho. taariikhda ama hilaadana waxa weeyaan 30 bishii afraad 2020 bare waa macalin Fuaad Maxamed Cabdi. sidaan hore soo sheegnay fasalku waa fasalka saddexaad. maalintu waa maalin khamiis ah. casharkeena maanta aan xagga kasoo jeedinayna insha Allah wuxuu noqon doonaa ama ciwaankiisu wuxuu yahay adeegyada bulshada ama adeegyada aasaasiga ah ee bulshada lagama maarmaanka u ah, taasi oo ah mid dee bulshada aanay ka maarmi karin, isla mar ahaantaana mid maalinle ah oo bulshadu maalintii ay u baahan tahay. haddaynu bilowno casharkeena waxa weeyaan adeegyada bulshadu waa howlo lagu horumariyo nolosha bulshada. markaa adeegyada aasaasiga ee bulshadu waxa weeyaan waa howlo lagu horumariyo nolosha dadka kala duwan, hadday tahay markaa kuwa hoose, kuwa dhexe iyo sidoo kale kuwa sareeya ay tahay. waa howlo lagu horumariyo bulshada, taasi oo markaa caawinaysa midka hoose ee markaa danyarta ah iyo sidoo kale midka markaa dabaqada markaas dhexe ku jira inuu markaa taageero oo markaa wuxuu u qaban karo uu qabto bulshada ka hooseysa ee dabaqada markaa ka hooseysa. iyo sidoo kale adeegyada bulshada ee aasaasiga ah ee uu heli karayo ee uu ku caawin karayo. markaa adeegyada bulshada waxaa ku jira ama waxaa ka mid ah adeegyada bulshada waxbarashada, caafimaadka, gaadiidka iyo isgaarsiinta. markaa adeegyada bulshada waxbarashadii waa ka mid ah oo qofkii waa inuu helaa waxbarasho. waxbarashadu waata qofka markaas ka dhigta qof markaa dhisan, aqoon leh, oo markaa isla mar ahaantaana qabanaysa qofkii oo qofka aqoonta leh ka dhex saaraysa bulshada intiisa kale. markaa taasi oo uu noqonayo qof ka dhex muuqda, markaa isla mar ahaantaana garaadkii qofka kor u qaadaysa oo inuu fikiro, inuu markaa ma garanaysay dee wixii qaldan uu yidhaah waxaasi waa qalad, inuu markaa bulshada horumar kusoo kordhiyo. waxyaabahaasi oo dhan ayay keensanaysaa markaa adeegyada waxbarashadu. waxaa kusii xiga adeegyada caafimaadka. kusii xiga bini aadamku guud ahaan waxa uu u baahan yahay caafimaad ayuu u baahan yahay, taasi oo haddii aanu caafimaad helin ay noloshiisu khatar geliso. markaa oo hadday noqoto gobolada, hadday noqoto degmooyinka, hadday noqoto tuulooyinka, ay noqoto dhammaan waa in laga helaa markaa ama ay dowladdu ay gaadhsiisaa adeegyada bulshada ee aasaasiga u ah, sida caafimaadkii, hadday tahay MCH-yadii, cisbitaaladii, xanaanooyinkii, intaba ay markaa ma garanaysay dowladdu ay gaadhsiisaa. isla mar ahaantaana qof kasta oo bulshada ka mid ah oo ay markaa dowladdaas xukunto ka mid ah waa inuu helaa adeegyadii caafimaadka. sidoo kale waxaa ku xiga adeegyada markaa gaadiidka ayaa ku xiga. adeegyada gaadiidku waa kuwa u sahla dadka in ay markaa socod ama dhaqdhaqaaq ay sameeyaan, ama gobolada ay markaas ma garanaysay isaga tallaabaan oo ay isu socod gobolada sameeyaan, ama isu socod markaa dhanka degmooyinka ay sameeyaan. isla mar ahaantaana dee ah nolosha markaa maalinlaha ee markaas dadweynaha ama bulshada ku dhaqan deegaankaas ku dhaqan ama markaa ay dowladdu markaa xukunto. tusaale ahaan oo kale dee shirkadaha markaa socdaalku waxay ka shaqeeyaan gobolada ay ka shaqeeyaan. hargeysa ayuu saaka gaari ka baxaya, wuxuu u baxayaa burco, u baxayaa hargeysa ka baxayaa, wajaale ayuu u baxayaa. waxa weeyaan waa adeegyadii gaadiidka oo markaas sameynaya inay bulshadu isu socod dhexdeeda ay sameyso. markaa waxaa kusii xiga adeegyada isgaarsiinta. markaa adeegyada isgaarsiintuna waa qeyb muhiim ah oo markaa ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee markaa bulshada ka mid ah, taasi oo haddii aanay isgaarsiin aanay jirin dee bulshadu aanay iska warhaynaynin, bulshadu ay noqonayso bulsho kala xiran,
bulsho aan iska warhaynin ay noqonayso. Laakiinse haddii ay adeegyada isgaarsiintu ay jiraan, bulshada waxay u suurtagelinaysaa inay nolosha maalinlaha ah ay kala warhayaan, oo ka markaa degmo kala jooga uu ka warhayo ka degmada kala jooga, ka gobolka uu markaa ka warhayo ka gobolka jooga iyo waxa uu ku sugan yahay markaa. Taasi waxay sahlaysaa in ay dadkii si fudud markaa isula xiriiraan oo ay u helaan markaas adeegyo markaas wanaagsan oo xagga markaa isgaarsiinta oo ay iskaga warhaynayaan, haddii ehel tahay iyo hadday qaraabo tahay iyo haddii ay tahay markaas waxyaabo kale ay isku caawin karaan, ama in ay markaa lacag isu diraan oo ay markaas magaranaysa ka qayb qaadanaysa adeegyadii markaa bulshada ah. Sidoo kale adeegyada bulshada qaarkood waxa markaa bixiya dad gaar ah baa bixiya. Adeegyada bulshada waxa bixiya dad gaar ah, tusaale ahaan leyrka oo kale, waxbarashada oo kale, xagga markaa adeegyada gaadiidka iyo shirkadaha socdaalka oo kale dad gaar ah baa iska leh, qof bareefada baa iska leh, qaar dowliyana way jiraan oo dowladdu iska leedahay markaa. Sida aad wada ogsoon tihiin leyrka markaynu ka hadlayno dee shirkado bareefado markaa leyrka iska leh ayaa jira, adeegyo bulshadana markaas ama markaa xaafadaha leyrka u geliya, kuwaasi oo markaas iyagoo si gaar ahaaneed uu markaa u maamusha markaa. Waxaa ka mid ah waxbarashada dowliya oo dowladdu gacanta ku haysana way jirtaa oo ay dowladdu markaa iyadu maamusho, iyo sidoo kale qaar markaas aanay dowladdu maamulin oo dad gaar ah oo bareefad ay leeyihiin. Dhinaca gaadiidka ayaa ka mid ah, dee gaadiidka markaas socdaalka iskama laha markaa qaar baan iska lahayn, dowladdu ay iska leeyihiin, dadka ay iska leeyihiin. Intaas haddaynu kaga nimaadno adeegyada markaa bulshada intooda badan waxaa bixisa markaa dowladda. Adeegyada bulshada intooda badan cidda laga doonayo inay bixiso waxa weeye dowladda, laakiin dad gaarina way bixin karaan ama ay dowladdu u xilsaartay, ama sidoo kale markaa ay iyaguba ay isu xilsaareen oo ay bulshadooda doonayaan inay u qabtaan markaa. Intaas markaa waxay noogu eeg casharkii ahaa adeegyada bulshada markaa, oo aynu kusoo qaadanay adeegyada bulshada ee muhiimka ah inay ka mid ahaayeen waxbarashadii, caafimaadkii, iyo sidoo kale gaadiidka, iyo sidoo kale isgaarsiinta markaa. oo waxbarashadu haddii aanay jirin ay bulshadaasi noqonayso bulsho aan horumarin, bulsho aan markaa magaranaysa dee sameynin wax koboca aan sameynin, wax isbedela aan sameynin. Sidoo kale caafimaadka haddii aanay bulshadaasi caafimaad helin ama aanay dowladdu iyadaa ka mas-uulin aanay gaarsiin dalka oo dhan caafimaadka aanay gaarsiin, dee waxay noqonaysaa in dad fara badan ay markaa caafimaad la-aan markaas ay u dhintaan, ama intaa markaa cisbitaalada ama MCH-yada ama xanaanooyinka aanay soo gaadhin, laga yaabo in markaa ay dee dhiig baxaan haddii markaa qofku nabar ku dhacay oo kale. Iyo sidoo kale adeegyada gaadiidka oo ah haddii aan adeegyadii la helin waxay socodi ma jirayaan. Isgaarsiinta ayaa ka mid ah, marka hadday isgaarsiin haddana jirin cid wada xiriir yeelan kartaa ma jirto, cid iska warhayn kartaana ma jirto. Intaas ayaan kusoo koobayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.